ورحمة الله وبركاته isku noqosho kale oo qurux badan kulli waxaan filayaa qof kastaba inuu xagiisa ku nabad qabo waxaan sii wadi doonaa cashiraanteena imtixaanaha ahaa haddaan si kale u dhigo cashirkeenii inoogu dambeeyay cishadii ugu dambeysay aynu qaadanay chapterkii aan ku jirnay ahaa autonomic physiology ama autonomic nervous system physiology ayaynu sii wadi doonaa halkii nagu joogay baynu kasii qaadi doonaa waqtiga nagu yaraa wadeed iyo cashirka wadno oon doonayno inaan meel fiican si gaadhsiino daraadeed baanu degdegaynaa saad ka wada warqabteen waxaan haysanay soo bilownay chapterkeenii ahaa autonomiga inagoo hor iyo haraan soo kala qeexin nervous systemka usoo kala qeexi jirnay peripheral iyo centralkan iska diina soconnay isagii wax ku saabsan waxaan ku dhigan doonaa neurophysiology-ga aanu soo qaadanay peripheralka aan autonomiga u kala qaybin jirnay somatic maxaynu kala qaybin jirnay autonomic iyo somatic maxaynu kala qaybin jirnay peripheralkan u kala qaybiyeynay markaas inaga waxay noo muhiim oranay chapterkan somatic la yiraahdo waxaan jeedaa autonomic la yiraahdo inoo muhiima oo noo ugu magac darnay chapterkeena markaa intii ugu horeysay waxaan soo qaadanay introduction yar baan soo qaadanay ka horreeyay cashirka oo inoo furayay waxay noogu saabsan cashirkeena ama inaad u muhiimsan tahay maadaama arday medical aad inaad ka ogaato baynu soo aragnay iminkana waxaan isla arki doonaa autonomic wuxuu yahay inagoo ag dhigayno somatic peripheralkan ku kala qaybinayna autonomic iyo somatic aan sheegnay mid kasta calaamadaha uu leeyahay 6 oo gaar caansan 6 calaamadood ka soo qornay ka 6 isla arkayna bal ma soo wada eegno somatic waxay somatic dad qasho waa bari waa jirkeena auto waa self nomic noox ismaamulaya weeyaan tan magaca kala qeexno kan wuxuu controlaya voluntary activity waxaad macnaha maamulayso kale ayuu isku dhaqaaqaya tusaale maxaa ka mid skeletal muscle kale ninka muscle marka soo laabayso adigoo is odhanin mataqaanaa ma soo laabaya maahine waxaan jeedaa adigoo is iraado ma soo laabaya maahine adoon soo laabi inaad soo laabtay aadan doonaynin ma soo laabi kartid sooma oo markaas maamulaya deeada maamulaya ka dhiganta marka voluntary waa skeletal ka mid ah muscle halkan maxaa ka mid ah waa involuntary weeyaan kanina maxay aan bilaad maamuli karay smooth muscle waa ka mid ah oo smooth muscle muxuu ahaa imisaatan smooth muscle jirkeena jira soo tusaale ahaan oo kale waxaad doonaysaaba mataqaanaa si fudud isha ka soo qaado isheenu ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu yeedhay muscleskaas qaar baa smooth muscle sometimes way yaraataa isheenu inagu ma aragno ma maamuli karno laakiinse buibilka macnaha qaybta midooba iska yaraata si kale haddaan dhigo visceral organska sida kuwani mataqaanaa caloosha oo kale maamuli karaysa adigu waa kuwan markasta caloosha mataqaanaa dhaqaaqaysa shaqaynaysa wax wada maamuli karaysid hadaynu si kale u dhigno oo soo dhaweyna fahankeena mataqaanaa ismus kale allahu mustacaal bolorka fasaliskana ma maamuli karo waxaasoo kale cardiac muscle ka mid iyo glandiska ka mid waxaasoo dhan maamuli karana cardiac muscle kan macnaha heartiga muscles kuleeyahay ka mid waa hangowda iska heed maamuli karin glandiskaas ka mid kuwan dhiiqayaasha kale iswiidka waxyaabahaas kale macnaha saliida sebaceous glandka waxaasoo dhan maamuli karana iyagoo iska dhiiqaya markaysa waqtigan ka caran originating nerve fiber-kan somatic wuxuu ka yimiday anterior heart of gray matter halkaan baa kasoo baahan aan isla fahanna aan jecelahay halkaasaan ku qoraynaa waxaad iga soo qaadaa spinal cord-kii nooga soo qaad maxaa odhanay nerveskan muxuu ka yimaadaa originatorkiisa wuxuu yahaan odhanay wuxuu ka yimid originatorkiisa odhanay anterior heart qaybta anteriorka ee gray matterka of spinal cord halkan muxuu ka yimid autonomicna wuxuu ka yimiday intermediate or lateral horn si fudud
of gray matter spinal cord buu ka yimaadaa ninkan autonomic waayo waxaan laga sheekeynayaa aan hornigan iyo matterka gray matterka maxay yihiin yaan jeclahay inaan isla ogaano waayo taan laga soo qaadaa maanta spinal cordkii aan se garanayna spinal cordku inuu lahaa mid kasta inuu leeyahay mataqaana salahan markaan soo qaadno ay adeeg marka cross section loo sameeyo kala lafaha marka cross section loo sameeyo kala weyn iminka hal lafaan soo qaadanay halka laf waxay leedahay waxyaabo la yiraahdo gray matter iyo wax la yiraahdo white matter aan soo irka kuma fiicni yahay white matter bay leedahay oo qayb cada inka white matterka au leeyahay spinal cord waxay waa qaybtaas white matter qaybtan aan caawinaysa qaybtaas white matter qaybta wareega inta oo ku wareegsan white matter guys qaybta yarna waxay noqonaysaa qaybta gudaha noqonaysaa gray matter marka waxay leedahay waxyaabo la yiraahdo dorsal iyo ventral iyo lateral bay leedahay hada eeg waxay leedahay qaybta maxaan odhanay gray matter baa la qaybtana maxaan odhanay white matter baa la way maxay leedahay qayb halkaas oo ventral la yiraahdo iyo qayb kale oo la yiraahdo dorsal iyo labadan oo lateral la yiraahdo marka it means ninkani somatigu wuxuu ka imaadaa anterior horn ama ventral horn qaybtaas uu ka imaado halkaas macnaha mid kasta iyo mataqaanaa somatic ka imaadaa waa maxay nerveskiisa weeyaan halka uu ka nooga imaado lateral horn iska dhinacyada ka imanaya ka imanaya autonomiga ka imanaya waa yahay hadaynu ka soconaa shirkeena hadaynu ka soconno sabab isku garab dhignay dad fahmi video ku soo ceshan karta way motor nerveskiisu pathway ama pathway aan soo dhan karnaa wuxuu kooban yahay single neuron effector wuxuu kooban yahay hadhow aan isla arki doonaa wuxuu kooban yahay somatiku hal neuron buu kooban yahay halka uu kooban yahay autonomic nervous wuxuu kooban yahay autonomic nervous motorkiisu wuxuu kooban yahay motor pathway wuxuu kooban yahay two consecutive nerves oo preganglionic iyo postganglionic laba nerves oo isdaba socda ay ku kooban yahay oo effector cells ka tagay halkan mid khaas ah leeyahay neuron khaas ah effector cells ka tagay waxaan isla aragnaa tusaale way waxaan ka soo somaticka way yahay kaasinka somaticki intaas kala oo dhan Allahu musta'an intaas kala oo dhan wahay autonomic inta waa somatic lagisi way waa intaas eeg haddana maxaa nimxu kooyay autonomic two consecutive nerves ku kooyay la rab preganglionic iyo postganglionic ku kooyay saas ku tagay effector cellski hana ka soo qaaday effector cellski inuu yahay cardiac muscle glands nerves waxaas inuu yahay ka soo qaad mataqaanay effector macnaha organiska lagu talagalay tagaan oo wuxuu noqon karaa sweet glands oo noqon waxaas kale noqon karaa mataqaanay adoo wax kasta noqon karaa effector cellska loo socda halxaas adig weeyaan meesha danta loo leeyahay effectorku marka wuxuu kooban yahay kani markaan leeyahay autonomic postganglionic preganglionic iyo postganglionic la dhahdo pre means before post na waa after waka ganglionka hore waa beriga iyo post uu kooban yahay maxaa kooban autonomic ka kooban deegaanka waxaan waa sympathetic parasympathetic autonomic ku qaadnay halka laga maxaa gooyn noo yaala somatic bay noo yaala somatic isagu waa neuron khaas ka neuron ka khaas weeyaan mataqaanaa somatic isagu noqonaya hadda bisleefan waaye hadaynu kusoo noqono cashirkeeni isagu muxuu kooban yahay soconay single neuron haluu ka koobayay laba consecutive nerve oo la raabi preganglionic iyo postganglionic pre means before ganglion postina after ganglion weeyaan haddaba ganglion maxaa hadaan pre iyo post kala qeexnay ganglion muxuu ahaa ganglion it means waxa la dhahaa waa nerve cell body waa nerve cell body ama cluster nerve of cell body weeyaan that located in a outside of central nervous system outside of central nervous system kulugay waa peripheral nervous system ku wuxuu leeyahay central nervous system isagoo nucleus wax la dhaho nucleus kala dhaho waa cluster nerve cell body of central nervous system la dhaho nucleus marka central nervous system dhigayno waxaan arkaynaa markasta nucleus halka la ismkaan dhigayna waxaan arkaynaa ganglion arkaynaa ka ganglion waxay waa cluster nerve cell body of the peripheral nervous system haluu kan nucleus ka yahayna cluster nerve cell body of central nervous system marka waa pre ganglion iyo post ganglion pre before post after way always can be excitatory oo waxa muhiimad galayo waadigan markasta dee ismaamulayaadu kan laga inhibitory excitatory lay ama
autonomic wuxuu ku leeyahay tusaale ahaan markaas soo qaadano sympathetic ay noo soo qaado qayb ka mid ah autonomiga wuxuu leeyahay inhibitors iyo wuxuu leeyahay excitatory haddii aad dalacmato sympatheticu jirkeenu wuxuu sababayaa inuu sympathetic dejiyo oo parasympathetic dejiyo sidaa kale neurotransmitterkiisu muxuu noqonayaa kan waa acetylcholine oo ah waana cholinergic receptor odhanaya nicotinic receptor macnaha receptorka la qabsanaya nicotine odhanaya haddaynu halkaas la eegno NTL nicotine tuutaa acetylcholine waa ACH taas u muuqata marka wax kasta oo mataqaanaaye ay acetylcholine waxa odhanayna cholinergic receptor cholinergic receptorka maxaa ka mid ah n taas ka mid ah nicotine la dhaa ka mid ah ata way waa maxay kaas oo somatic hayadan iyo manno mataqaanaaye cholinergic haddaynu imanno autonomic maxay yahay neurotransmitterkiisu waa acetylcholine iyo epinephrine acetylcholine waa maxay waa cholinergic norepinephrine waa maxay waa adrenergic receptor saas kale u fahmina aan ka socono kana si fiican u fahmina waxa la igtaa markasta acetylcholine maxaa odhanay maxay tahay somatica markasta iyada waxa la igtaa haddaan ku siiyo xabad out of console oo bonus acetylcholine markasta eegatay markasta preganglionic meel kasta ku jirta acetylcholine preganglionic oo yaalo autonomic dhamaantii waa acetylcholine nicotine maxay tahay waa receptor beta receptorka ugu badan weeyaan musculic uu yar yahay laakiin way haddaynu inag parasympathetic acetylcholine baa ah preganglionic iyo postganglionic gabayda ah laakiin sympathetic norepinephrine baa ah exceptional baa jira sympathetic sida kawa sympathetic sweet glands oo waa kan ah mataqaanaa acetylcholine ah ee la mid ah sida parasympathetic kaata exceptional kama ahe inta kale waxa wada weeyaan jirkeen Ilaahay subhanahu wa ta'ala u qaburay inuu sympathetic ahaado norepinephrine iyo acetylcholine norepinephrine postganglionic iyo acetylcholine preganglionic marka intaas ku fahmi karnaa soo kale waa kan somaticina isagana waa acetylcholine iyo nicotine kiba receptor entan iyo emtan iyo ku khalin cholinergic markaan leenahay mataqaanaaye neuronkaasi waxa sympatheticaas waxa uu markaan leenahay parasympathetic waxa uu neurotransmitter acetylcholine waa cholinergic marayna cholinergic laba kala bixi doona wuxuu kala baxayaa cholinergic receptor wuxuu kala bixi doonaa nicotinic receptor iyo muscarinic receptor buu kala baxayaa hadda waxa ku qorano markaynu leenahay Allahu musta'an cholinergic receptor waxaan kala qaybeynaa nicotine iyo muscarinic baan kasta kala qaybeynaa taag haddii aad maqasho adrenergic receptorna waxaan kala qaybeynaa alpha iyo beta aan kala qaybin doonaa oo alpha iyo beta ka shaqeynaa maxay tahay marka la joogo adrenergic hadduu neuron ku yahay epinephrine baa ah neurotransmitter hadduu cholinergic yahay اللهم استعلا كسبان كيلاوي الكان acetylcholine ده الكان حيترا norepinephrine وصار قابصدي باي haddii uu neurotransmitter yahay nervigeena mataqaanaaye acetylcholine xareena cholinergic muxuu kala baxayaa nicotine receptor iyo muscarinic receptor haddii uu neuronkeena uu yahay mataqaan neurotransmitter macnaha waxa la gudbinayaa neurotransmitter macnaha waxa la transmitter gayn la gudbinayaa duu yahay xogtani norepinephrine waxa la oranayaa adrenergic receptor muxuu kala bixi doonaa alpha iyo beta kala bixi doonaa si kale haddaan dhigno cholinergic markasta wuxuu noqon doonaa acetylcholine oo mataqaanay oo tahay mataqaan neurotransmitterka waa parasympathetic halu adrenergic ku yahay sympathetic dawli aan balaqanaay ka socono autonomic way guud ahaan wuxuu controlaa visceral organs jirkeena ku jira systemyada uu control sida arteria pressure arteriyada gastrointestinal motility kala socodka cuntada ka soconayso gastric caloosha to intestine secretionada ay soo siidinayaan taqana gastric sida acids oo kale iyo xilamida urinary bladder in marka la nadiifinayo macnaha urinate ka tamayso kale kaasoo kale xilliyada digidka oo kale xilliyada body temperature waxa soo dhan buu controlaa autonomic waa taqana waa control fiican waxa lagu control ku leeyahay entire and some only partial autonomic nervous system some of which are controlled mostly entirely dhamaantood qaar buu autonomic wada controla
laysa qaar buu baashiyan ka control karaa waliba way waxaan kala qaybin karnaa autonomiga si fudud saan ugu soo sheegnay sympathetic iyo parasympathetic sympathetic waa markaad fight and flight galayso macnaha markaad caymadayso markaad fight dagaalamayso iyo marka aan flight markaad duulayso macnaha markaad baxsanayso wax ka waa kan tusaale markaad naxdo kala ma qof kiriyo kala wadnaha go baxsanayso kale waa sympathetic oo markaa shaqeynaya jirkeen parasympathetic wuxuu yahay markaad rest and digest markaad ka nasanayso iska fadhido caloosha digestion ka shaqado cuntada laga shaqeynayo waxa soo dhan dejisan tahay oo parasympathetic loo dhaniyo saliishadayna qaarkood waxay dhamaantood waxay wada helaan dual innervation maxaa ka dhigan tahay waa both labadaba way helaan sympathetic iyo parasympathetic labadaba way helaan sympathetic iyo parasympathetic bay helaan parasympathetic iyo sympathetic bay wada helaan jirkeena badana oo mostly way respectayaan purpose-kuna wuxuu yahay for better control way laakiin waxa jirta qaar exceptional ah aanan controlin bal dual innervation-ka sympathetic iyo parasympathetic jirkeena sida sweet glanka adrenal medulla professor skinner periorrector intaas oo dheeg waxa u gooniya intaas oo dhan mataqaanaaye sympathetic arkan salisyadaasi ma maamulo mataqaanaaye soo sheeg ma maamulo parasympathetic sympathetic ma noqon karaan markaas kuwani waxay noqonayaan kuwa aanan controleynin mataqaanaa system kale oo system khaas controlay labada system jirkeena muxuu helaa waan saranay labadaba parasympathetic iyo sympathetic buu helaa laysa kuwani ma helaan labadaba mid khaas ay helaan okay sweet glands marka digidka adrenal medulla marka medulla soo sideeniya mataqaanaa waxa jira mataqaanaa renal-keena waxay leedahay waxyaabo la yiraahdo supramedulla waxaan jeedaa suprarenal gland la yiraahdo gland-ka wax soo dhiiqa ama adrenal medulla la yiraahdo adrenal wuxuu leeyahay taan si kala dhigno markii kalidu saa tahay su'aalahan kalidu saa tahay kale kalidu saa tahay waxyaabo soo uga sareeya jira oo la yiraahdo maxaa la yiraahdaa suprarenal gland bala ama adrenal gland bala adrenal gland-kaas wuxuu leeyahay hadaba wuxuu leeyahay laba qayb u leeyahay qayb medulla la yiraahdo oo qaybta gudaha iyo qayb la yiraahdo cortex la yiraahdo marka qaybta gudaha ay adrenal medulla la yiraahdo ma controlo system khaas ee labada system ma controlo waxaan u jeedaa labada system ee midun baa control kana waa sympathetic blood vessels ka jira sidoo kale mataqaanaa skin biliorrector baa jira skin biliorrector waxay ka dhigan tahay muscle waxa la yiraahdo erector bili muscle la weeyaan oo u qaabilsan goosebumps marka juucunayso kale xilligada aad taxmoonayso kale markaad roobdu guud oo kale waxa xilligada fayd aad mataqaanaa oo jirkaaga oo aad mataqaanaa ama xilligada naxdo kale wax ka naxdo kale isla markaa waad juucunaysaa kaas sympathetic baa shaqeynaya muscles-kaana waxa ka mas'uula waa innervation khaas oo sympathetic bay helayo xilligada sympathetic uu ku fadhiyo jirkeena ma la soo deyn karo ma taqaanaaye ma noqon karaan waxa tusaalahaan oo kale marka leenahay ma noqon karo goosebumps macna juuco xilligaas kale meesha xilliga sympathetic haddana ka socono su'aalaha waa kan parasympathetic waa khaasiyadkeena duka isha sympathetic qoodiyo parasympathetic uu haya hadduu salivation-ka wax soo dhiiqitaanka qadhooftii waxaan sympathetic u maamulaa parasympathetic maamulaa sympathetic u maamulaa heart-ga u maamulaa kanoo la maamulaa mataqaanaa soo sheeg bronchioliska ama waxaan jeedaa lungs-ki kanoo maamulaa kaas markuu constriction ku abuuro sympathetic kana dilation macnaha uu weyneynaya adina kasoo ka bixinay wada maamulayaan xaas caloosha kale oo kaawid maamulayaan liver-ka kale oo kaawid maamulayaan leeskaas waxay waa suprarenal gland sahar uga soo sheegnay iyada waxa maamulayo khaasa sympathetic oo meesha lagu sii daayo adrenaline macnaha ama epinephrine si kala daan dhigno sidoo kale bladder-kiina waa kan isaguna sidoo kale uu waxaya sympathetic iyo parasympathetic uu waxaya way Allahu musta'an haddaynu ka socono halka waxaynu ku joojinay intii introduction-ka ahayd ee autonomic innervation-ka macnaha waxa uu innervation garanaya autonomic-ku haddaynu isku yar darno mataqaanaa concept yar waxa ku fiican aan filayaa inaynu ka dhigano mataqaanaa xiisad kale sababtoo waa concept kale oo galaynaa oo sympathetic baan galanaa labadii qaybood marka soo kala qeexnaa imika mid ma kala qeexnay parasympathetic iyo sympathetic labadaba ma kala qeexi doonaa insha Allah xiisadeena maanta taa ku istaagi doontaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh